الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وبعد. إن شاء الله تعالى إخوة الأعزاء maanta oo maalin axad ah insha Allah waxaan yara jeclaystay inaan xoogaa aan iska niraahno yacni ahmiyatu dacwa ila Allah ciwaanka halkaas ku qoran inaan bal maanta aan ka soo qaato ilaa iyo 5 qodob. ahmiyatu dacwa ila Allah in ilaahay xaggiisa dadka loogu yeero ahmiyadda iyo muhiimka ay leedahay iyo ما هي المسؤولية الدينية على الشخص أو المجتمع. مسؤولية maxay tahay diiniga ee qofka shakhsiga saaran ama mujtamaca laga rabo. mas'uuliyad baa saaran qof kasta waa mas'uul weey. marka mas'uuliyadda laftigeeda inaan macnaha wax ka taabano waxaan marka intaas aan ku soo koobay adiga 5 qodob kaliya si clipkana faa'iidadana u badato ayaanan ugu talagalay. horta hore ahmiyadda dacwada waxa weeye إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كاوحو كل يهي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. معناها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نبي محمد وحلي أغير ضدك إلهي حقي سئي وددي سأغير موعظة ونعكسنا أغير ayadoo xigmad ay ku dheehan tahayna ugu yar way. qofka waxa la rabaa si xigmadaysan inaad qofka wax ugu sheegtid si uu wax kaaga qaato ama wax kaaga fahmo. marka xigmad si ku dheehan tahay baa la rabaa inaad dacwada u gudbisid. ud'u ila sabiili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasana. marka horta hore ahmiyadda loo baahan yahay oo dacwada ilaahay xaqiisa la isugu looga baahan yahay horta hore waa taas in wadada ilaahay iyo xaq la isu sheego oo dhankaas la isugu yeero way midda koowaad ahmiyada way. mas'uuliyadda qofka saaran ama shakhsi ha ahaado qofka shakhsiga ama sheekh ha ahaado ama tilmiid ha ahaado arday ha ahaado mas'uuliyadda laga rabo waxa weeye mas'uuliyadii saarneed rasuulka salawaatullaahi wa salaamu calayhi ayaa adigana ku saaran way. wixii rasuulka saarnaa way ku saaran yihiin. wixii rasuulka lagula khidaabay adigana khidaabkaasu macnaha wuu kugu dhacayaa. midda koowaad waxaan ka dhigay qodobka koowaad an yasda'a bil haqq qofka inuu sheega xaqa oo ku dhawaaqo oo la jahro oo gudbiyo shayga xaqa sidaas qofka laga rabaa. ayala ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa ayuu yacni kula hadlay oo wuxuu yiraahday fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin. nabi maxamed oo la jahar waxa yacni lagu farahayo way xaqa gudbi baa li rasuulka salawaatullaahi wa salaamu calayhi kana jeeso mushrikiinta macnaha. marka macnaha waxa xaqa oo haddii alla kuuro yahay rasuulka la amrayo waxa weeye waad garanaysaa rasuulka salawaatullaahi wa salaamu calayhi markiisii ugu horeysay waa asagii qaar xira uu ku cibaadeysan jiray asagoo macnaha dadka ka dhex baxay dambigooda iyo warkooda. halkaas markuu tagay waa asaga malakul jibriil la kulmay. waa asaga malakul jibriil 3 jeer xoogaa camajuujiyay waayada ay soo degtay iqra lillahi bismi rabbik. inta bacdigeeda rasuulka waa asaga soo baxay salawaatullaahi wa salaamu calayhi asagoo zawjadiisii qiimaha badneed soo aaday khadiija bint khuwaylid asagoo waliba ku yiraahday zamiluni markii oo macnaha hadii alla ku raaya argagaxay kabacdi macnaha
markuu meesha yimid kadib intuusan zamiluuni dhihin waa isaga malakul jibriil samada yacni korkiisa uu ka arkay macnaha malakul jibriil oo taagan haddana markaas waa isagii khadiijo u imaanahaya oo dhahaya zamiluuni iduuduuba iduuduuba marka iyada ah waxaa la yidhi rasuulka oo lagu soo dejiyey yaa ayuha almuzammil qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahhir waad garanaysaa rasuulka waxaa lagu yidhaahday midkaan isduuduubahayow qum faandir baa layidhi istaag oo dig warabbaka fakabbir rabbigaana weynee wahiyaabaka fatahhir dharkaagana yacni nadiifi oo daahiri marka rasuulka intii lagula khitaabay oo dhan adigana way kuu taallaa wey amarka rasuulka la siinahayey oo macnaha dacwada xaqa uu gudbinahayay macnaheedu waxay ahayd in macnaha haddii alla kuuran yahay ay dadku ay hanuunaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa ay aadaan sidaas bay ahayd muhiimadda iyo ujeedka laga lahaa ilaahay inay ummadda yacnii xaqiisa loogu sheego oo macnaha haddii alla kuuran yahay la waaniyo sidaas unbay ahayd marka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh waa isaga la amray inuu xaqa gudbiyo aayaddaanna waa ayada dhahaysa fasdac bimaa tu'mar wixii lagu faray rasuulka ilaahayow la jaharo yacni u istaag wey macnaha xaqa gudbi wey marka haddii alla kuu raya qofka marka uu xaqa gudbinahayana waxaa xaqiiqo ah inuu la kulmahayo dad fara badan oo dhibaato ah ama caayahaya ama wax ka sheegahaya ama afjigahaya ama ku dirahaya dadka addoomma yacni doqomada iyo addoommada inuu macnaha inay dhacayso arrinkaas waa wax xaqiiqa ah arrintaa ayada ah rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh isagoo ilaahay kala hadlaya wuxuu yidhaahday innaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwa macnaha rasuulka ilaahayow ugu jeesjeesahayo waan kaa kaafinaynaa baa marka horta taasna in qofku uu sidaa u ogaado weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka kaafinayo mustahzi'iinta dhammaantood adiguna kadaalika tahay marka xaqa aad gudbinaysid wax allaala wixii kugu jeesjeesay iyo wixii xaqa macnaha afjigaba intaasba ilaahay baa kaa kaafinayo inaad u istaagtid baa la rabaa xaqa gudbintiisa taas marka xaqa gudbintiisa waxay u taallaa shiiqa waxay u taallaa talmiidka waxay u taallaa qofkii xaqa ilaahay soo gaarsiiyey oo wax gudbin karo ay ka suurowdo inuu wax gudbiyo qodobka labaad waxa weeye waya'mura walow kaana muran wa an ya'mura walow kaana muran waa inuu wax faraa qofku hadday rabaan kharaar ha noqotee macnaha xaajada markaas taalla arrintuba ha ku adkaatee yacni waa inaad xaqa gudbisid wey inaad xaqa gudbisid xadiiskii abidar saxaabigii ahaa oo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu kaga sheegahayo u yidhaahday wuxuu amray amaranii khaliilii bisabcin wadeegay wuxuu amray buu yidhaahday 7 arrimood buu amray buu amaranii bixubbi lmasaakiin masaakiinta inaan jeclaado ayuu amray buu yidhi waddunawi minhum inaan u dhowaado wuu amray buu yidhi wa amaranii wuxuu amray buu yidhaahday an andura man huwa duunii inaan fiiriyo qofka aniga iga hooseeyana wuu amray buu walaa andura ilaa man huwa fawqii qofka iga sarreeyo xagga adduunyada iga sarreeyaan inaanan fiirin ayuu rasuulka i amray buu yidhaahday macnaha sidaas ayuu rasuulka i amray buu wa amaranii wuxuu i amray buu yidhaha an asila raxima raximka inaan xiriiriyuu yidhaahday wa in adbarad raximku haba iga jeesatee inaan xiriiriyo ayuu amray wa amaranii wuxuu i amray an laa as'ala axadan shay-an axadna inaanan shay aanan weydiisan macnaha ayuu i amray qofna inaan shay ayuu i amray waay marka wuxuu i weydiistay wuxuu yidhaahday wuxuu i amray buu yidhaahday rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaanan qofna wax weydiisan buu yidhaahdaa waan laa as'ala axadan shay-an axadna inaanan waxba weydiisan buu rasuulkii amray buu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh
وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرًا وحي أمري بيرهذا إن حقك قوله حضور ربه قرارها marka ujeedka iyo muhiimadda xadiiska inta aan ka soo qaadanay oo naga quseeyay wuxuu ahaa yani waxa weeye rasuulku wuxuu amray an aqula bil haqq wa in kana murran qaraar baha ahaadee inaan xaqa gudbiyo buu rasuulka ay amray buu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh marka meeshaas maxaad ka ogaanaysaa wuxuu haddii xaqa gudbintiisu ay qaraar tahay ay adag tahay waa inaad gudbisaa midka ku xiga wuxuu yidhaahday wa amaranii an laa akhaafa fi llaahi lawmata laa'imin inaanan ilaahay dartiis uga baqin mid dagaalama dagaalkiis ayuu faray buu yidhahday abidar saxaabiga ah wa amaranii wuxuu amray buu yidhaahday an ughira min qawli laa xawla walaa quwata ilaa billah laa xawla walaa quwata ilaa billah inaan badiyo يعني أيو يعني فروي فإنهن من كنز تحت العرش كنز أو تحت العرش هذا بك هذا بين كلمات مرك حديث كمهمة عن أسوأ قال النيوها المقصود كالنوها غضب كأه وأن يأمر ولو كان مرا أيام معناه حديث عن كجسوا قالنا إن ماش رسولك وسحابك يعني كفروا شيء حقها وإن شئتها هذي ربطو قرارها هاتي حالات أذقما أكلا كلنتي قضب كاس مركا وقضب كل بعض أو قفك شيخ أما تلميذ كأهل لقدون هي إنه حقك كجد بيو حق إنه كجد بيو مد قضب كسدحاد أو قفك اللي جربه أو دعوته أي كسر عنه يسوي حوي ولا يخاف أن لا يخاف لومة لائم qof mid dagaalkiisna waa inuusan kaba cabsan qof inuu ka baqo sida isla xadiiska laftigiisa waa ay ku sugnayd oo ku sugnayd uu yiraahdo wa amarani an la akhafa fillahi lawmata laa'imin qodobkaasna waa qodobka saddexaad weeye sida xadiiska ku sugan maca dalika waxaa dhici karta adiga oo jooga in shariicada islaamka la qariyo أما واحد يعكرت إن باطل لا تحجلي حقي أما باطل كي لا يحق بديسي حقي أرنكا هذي دعوه وحل دون يا قفك إنه أرنكا سوء استاجه سيد إلهي سبحانه وتعالى وكبر دينا يقول لي ونوجدها هي ربنا إسرائيل وحياله لقمة إسمين جريم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون إلهي وحول لي هاي حق باطل كحق قصيرة باطل هي حق هاي سدح قالنا سداس أيول لي إلهي سبحانه وتعالى ومركز هذا حق يعني قريسان مر لأن باطل كي يعني حق يدل سدح قاليو حق وقرسوه مايا باطل كي بحقه كان هاي حقنا باطل بو إكا مركز وحالي هذا حق يا باطل كاي سدح قالنا وتكتموا الحق مركا حق على القريسان وأنتم تعلمون أذنكم إن الحق قريسان مركز وخطر وأرن خطر إلهي سبحانه وتعالى ونوجدها مركز سيدا صدرت يدوح على الرباه مركا إيتاجن تاي إن حق الله موجيه شيقة يتلميذ كقف والبابا يعني بقدر إمكانه أنت أسوره بيسوى على الرباه إنه استاجه وحق شيء بعد الله هذا الزمن كان وحويه إلهي بن نوفي وآلتي بابا إسكسهلا حق وجودين كتا أول لمن كان مبتدع على أو حيسمين جرين أيها كريه أيها ميديا حيسن جري أيها كريه أيها أمدا وحشيج جري أيها كريه يدك وحكي قادن جرين سيداس أيها باطل كفافي حقنا وقرصومي مركب ما أنت أيضا إلهي وكوفو ذي شيء حق أديك وجودين كرا يعني واحد كوجود بسنة هلي كرا إن مستد تاسوا خطر ويا علمي قاعد قريصي نعقاب دنيا يلا لا حقها قرنين شيء ولا استاج أنت أصلا معناها لقى دنيا غضب كأفراد معناه وحل الربا وحويل هذي ولا يبالي ما قالوا وأن لا يبالي ما قالوا dadka markii xaq aad sheegaysid dad badan oo wax dhahaaya jira ama noole ama wax ka sheegaya ama macnee ku dhacninaya ama ku duraya ama ku afjigaya waxa soo dhan
وإنه قفك وحاس ودنك قال لما ربو وحدنا إنا كجشد لما ربو إنا تكسعتا لربو يعني إنا ذي يعني هذا أجو الجمهور إلى آيات هورنا وآيات يكسرنا إنا كفيناك المستهزئين إلهي بكا كافراي هو معنى المستهزئين هو جيس هاي وحق كو جيس هاي إلهي بكا كفيناي سيد رسولك اللي يريبا إلهي بكا كفيناي قفك مركو وحال الرباع إلى هذا ندق جلب قصيدي رسولك اللي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه مع ذلك هذه حاجة جوكا مركو واحد وقتها قفك عن داعية أو خير كمركا شيء يصير واحد أركيسا إن بدن أو عايا هي أما وحكاية شيء جاي هأوب واجبات كأجيبت بدنيسا كواسنا دم بيعروسنا يا إلهي سبحانه بدي ذاك الواحد وقتها وحد شيء إن لا يقع تشرد ما إن قف كهن ونشرد ما أذيك وحلا جرب كليا واحد هاي إن تحقق جد بسيط بس الناس على جربه أما قفك حقاته أما يسقادين حجة أي سيكون قنيسا هذه الحجة ما حيكون هاي حق أجود بسدور إلهي آيات القرآن وكلها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء رسولك إلهي تشهد معها إن هنونك معناها واجب ومصارنا إن يهنونا واجب مكو وصارنا واحد شيء إلا وإلا ذكر إن كهنونا أما إقاتان ما أهان معناه ولكن الله يهدي من يشاء إلهي وقفك ودونا أسجى هنوننا يوم مرك إلهي وقفك ودونا هنوننا أذيع مسؤولية كسارن أو إلى جد بسدة كليه واستاجوا حق الجذب حق الشيء جارسي هذه هذا دعوة جارسين كريم وحي حق ولا شر جري سي جذب جارسي أنت أسياد معناه آخرنا كوب بعد إنسان أدون كلام كل بعد يسوي marka inaad shayga xaq ah oo la gudbiyo aad bay muhiim u tahay qodobka shanaad oo aan yani hadii aan la kuunayo mas'uuliyadda qofka uu ku gudan karo waxa weeye yani wa an yakhlisa bi da'wati da'wada uu dadka ugu yeerayo ilaahay dartiis inay ka ahaato ikhlaas inay taala raba marka aad wax sheegaysid hal lagu amaano inaysan ka ahaanin marka aad wax sheegaysid hal uu jeclaado inaysan ka ahaan marka aad wax sheegaysid waxa lagu siiyay inaysan ka ahaan marka aad wax sheegaysid martabadaada kor ha noqoto inaysan ka ahaan laakiin inay noqoto ilaahay dartiis inay waxan ka yihiin yani oo litakuna kalimatullahi hiya al-ulya faqat inay kalimada ilaahay kor noqoto yani qasadkaaga iyo hammigaaga iyo ujeedkaaga inuu sidaas ahaado ayaa laga doonayaa إلهي آيات القرآن وكل يهي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آيادا معناه واحد أسوأ قادنينا من كان يرجو لقاء ربه قفك إلهي لكل كيسدون فليعمل عملا صالحا أي مخلصا عمل أو إخلاص سمينا أيوه حسمي مرك عملكم معا كليا مدك واجب كأذي وخسارني دعوة عمل وي لفتي هذا إن أدتك وحقد بسد عمل وي عمل صالح وناكسن وي مركا كي أديك واجب كأو وخسارن مركا أتسميني سد إخلاص سمي صلاة مركا تكني سد إخلاص سمي عبادة مركا أتفلني سد إخلاص سمي خير كمركا قدبيني سد إخلاص سمي إخلاص كمرة والبو معناه وحوية شيء خسارن وواجب أو هذا لكن إخلاص كتكتي ده وحوية إلهي بعد يعني سمعة يا شريك وحبادو شريك يا شو إلهي غير كيس أيا عمل كاجي لو ذا جسد سيدا صنقنايا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا غير إلهي عبادة إلهي يسمى قفنا لو ذا جسد قفنا إلى لو ذا جسد عبادة إلهي لما حديث كده يا رسولك صلوات الله وسلامه عليه وما وشى جاي رسولك حديث غير واحد جرين جهادي أو شهيدي أو دنتي iyo nin cadii la kuurayahay cilmi bartay oo dadkii baray oo quraanka bartay oo dhintay iyo nin hadii la kuurayahay hanti ilaahay siiyay oo sadaqadii bixiyay oo hadana yaani dhintay saddexdoodaas baa ilaahay maalinta qiyaamaha saddexdooda mid walba ilaahay baa u yeeray subhanahu wa ta'ala kii macna waxa la leeyahay yaani ugu horeeyo shahiiday waxa la leeyahay ilaahay nicmadiisii buu garsiinaya أو يحبوا حسوسنا يا كيو قرنا يا وعلى ليه هي
bal waran nimcooyinka aan kuu galay ka waran ilaahayow adiga dartaa baan u soo shahiiday buu leeyahay adiga dartaa baan u dhintay jihaadkaan u dhintay litakuuna kelimatillaahi alculyaa baan u dhintay markaasuu intaasuu leeyahay kadabta been baa sheegtay baa la leeyahay been baa sheegtay yacni waxaad u dhimatay in lagu yidhaahdo hebel shujaacow geesi buu ahaa in lagu yidhaahdo ayaad u dagaalantay waadna dhimatay hadda geesina waa lagu yidhi hadda macna naartaa lagu tuuraya waa ninkii dhammaayoo soo jihaadoogo oo shahiiday annaga xukumkii shahiidnimadaan marinaynaa xukumkii shahiidnimada ayaan marinaynaa laakiin cindallaahi shahiidka ma aha waxaa sidoo kale yacni ayadoona dhacayso nin baa macnaha cilmi baranahaya cilmigii marka uu barto ayuu dadkii barahayaa qur-aankii buu dadka barahayaa asagii baa baranaya waa gudbinaya hadhowti baa ilaahay marka nimcooyinkii uu galay buu xasuusinayaa kan uu xasuusanayaa mar allaala markuu xasuusto baa waxaa la leeyahay ayee ka waran maxaad nimcooyinkaas aan kuu galay maxaad ku samaysay markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayow nimcadii aad ii gashay oo cilmigaad i bartay ah horta hor cilmigii baan bartay cilmigii markaan bartay dadkii baan baray qur-aankii baan akhriyay adiga dartaan saa uu sameeyey been baa sheegtaa la leeyahay kadabta been baad sheegtay ayaa la leeyahay macna waxaa la leeyahay waxaad yani wax u baranaysay hal lagu yidhaahdo sheekh hebel caalim buu ahaa nin aqoon leh buu ahaa nin diinta yaqaanuu ahaa nin dadka waxbaruu ahaa nin qur-aanka akhriyuu ahaa nin cajaa'ib leh buu ahaa in intaa lagu dhaho ayaa doonaysay waana lagu dhahay yacni naarta ayaa lagu ridayaa marka naartaa lagu tuuraaya marka kaas macnaha maxaa isagana saas ku galay waa ikhlaaskii buu ka tegay camalkiibuu ilaahay dartiis ka dhigi waayee istustus iyo sumco ayuu wax u bartayoo hal lagu yidhaahda iyo halagaa sheegay iyo wakaasa iyo jameeca samaysiibuu wax u baranaya ama yacni dadka uu gudbinaya ka saddexaad wuxuu ahaa ninkii macnaha hantida ilaahay siiyey oo dhaqaalaha iyo maalka siiyey markaasuu sadaqa badan buu bixin jiray laakiin sadaqada ha bixiye istustus buu ka aha halab oo hebel taajir wey hebel yacni sakhi buu ahaa hebel yacni karamkiisii deeqdiisa ha badnay in la ammaano ayuu macnay sidaas ka rabay marka amaha ilaahay xasuusinaya nimcooyinkii loo galay baa la leeyahay haya ka sheekee nicmooyinkiibu markaas haddii alla kuu ran yahay yaa la xasuusinaya ilaahay saanu kuu galay hanti baa ku siiyey qani buu kaa dhigay barwaaquu kuu galay maxaad khayr ku samaysay markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayow yacni wixii aad ii gashay aniga wixii oo dhan sidii waddadii aad rabtay baan ku bixiyey sadaqadii sidii aad rabtay baan u baxshay dadkii alla rabay baan siiyey masaakiintii baan siiyey dadkii baan ka quudiyey waan nafaqeeyey wakaas buu leeyahay ilaahay been baad sheegtay baa la leeyahay kadabta been baad sheegtay markaasaa waxaa leeyahay in lagu ammaano oo lagu yidhaha hebel deeqsi buu ahaa hebel nin fiican buu ahaa ayaad wax ku bixisay markan waana lagu yidhi cadaabta ayaa lagu tuuraaya marka hadda intaasoo dhan maxaad ku ogaanaysaa intaasoo dhan waxaad ku ogaanaysaa shayga waxaa la rabaa camalka saalixa markaad samaynaysid oo saalix lagu tilmaamayo waa midka ikhlaas kale oo ilaahay aad u barax tirtay weeye cibaadada marka sidaasaa la iska rabaa dardaaranka innaga wuxuu noqonayaa shantaa qodob in macnihii la sameeyo dacwada markii la fulinayo shantaa qodob baa lagaa rabaa qofka inuu shantaa qodob sameeyo inaad xaqa aad yacni la jahatid inaad xaqa amartid hadduu raba qaraar ha ahaado inaadan qofna aadan ka baqin inaad wix ay dhahaan aadan dan ka gelin dadku waxay dhahaan inaad camalka aad yacni barax tirtid shantaa qodob aan ku dadaalno shantaa qodobna aan samayno qof walba ama shiikh ha ahaado ama tilmiid ha ahaado waa waajib saaran inuu xaqa gudbiyo oo uu sheego wey haddii macnaha qof ka gaabiya aad aragtid waa inaad adiga ku boodaa oo wixii loo gaabiya aad samaysaa laakiin haddaad ka sugtid sheekh hebel baa macnii arrinkaas ka jawaabi doono ama sheekh hebel baa wax dhihi doono ogow beri hadda cilmigii waad qarisay khayrkii waad qarisay xaqii lagaa rabay iyo wixii ilaahay ku baray waad sheegi weyday la ogow haddaad beri dhimatidna dee xisaab bay kugu ahaanaysa marka inta adiga nawaaxigaaga joogta ama inta friend iskugu ah facebooka inaad gaarsiisaa laga rabaa inaad gudbisaa la rabaa caalamka inaad gaarsiisaa la rabaa marka insha allahu tacaala dardaaranka innaga wuxuu noqonayaa ahmiyatu dacwa ila allah dacwada ilaahay xaggiisa aan yacni dadka ugu yeerayno ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay in qof walba uu ogaado oo mas-uuliyaddeeda uu issaaro wey yacni qof kasta mas-uul weeye wixii la raaciyo mas-uul ka yahay wax kale ma ahan inaad xaqa gudbisaa la rabaa xadiiska aad taqaanay
hal xadiis haddaad taqaanay halka xadiis qofka aanan aqoon haddaa aragtid inaa u gudbisaa la rabaa haddii kale cilmigii waad qaris marka cilmiga la qariyana maalin kalean ka hadli doonnaa insha allahu tacaala halkaasaan kusoo koobayaa kiliibkaa yar waxaan u talagalay in ummadda lagana faa'iidaysto la isuna gudbiyo yacni intiinana aad sii sheergaraysaan ummadda badan ha ka faa'iidaan dadka cilmiga aqoonta ilaahay siiyeyna inay u istaagaan xaqa oo yacni ay gudbiyaan taasaa mas-uul ka saaran tahay qof walbana ka saaran tahay intiina ku jirtana qof walba gudbiya khayr badan allah in siiyo dhammaan inta cilmiga aqoonta lehna xaqa ha gudbiyaan ha sheegaan hana gaarsiiyaan ummadda wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu